ruux ayaa geeriyootay 10 kalena waa ay dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay saldhigga booliska ee degmada Waaberi. Wadada ayaa ahayd mid mashquul badan markii qaraxu uu dhacayay, waxaana khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dad shacab ah oo wadada adeegsanayay iyo kuwa fadhiya hareeraha wadada. Waxaa burbur xoogan uu soo gaaray inta badan xarumaha ganacsi iyo saldhigga booliska oo aan la cadayn in bartilmaameedku uu ahaa. Afhayeenka wasaaradda ammaanka Axmed Maxamuud Maxamed ayaa warbaahinta uga warramay khasaaraha qaraxa ka dhashay inta dawladdu ay og tahay. waa u jeedin wax khasaaro ah oo tiro badan ma dhicin. 5 ruux meesha ku dhimatay, 7 ruuxna way ku dhaawacantay oo shacabka Soomaaliyeed ah. ciidanka laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya wax khasaaro ah soo gaaray ma jirto. waxa Ilaahay ugu mahadcelinaynaa cadowgaas taagta daran tabar yareeyay oo hadda ku soo aruursaday inuu dadka shacabka qarxiyo ama khasaaro inuu u geysto damacsanaa. ciidankeena u diyaarsan mar walba inay shacabka badbaadiyaan sida booliska, sida nabad sugidda. insha Allah taala mar walbana ciidankeena saas u feejigsan yahay haddii Ilaahay raali ka noqdo. waxaan leeyahay shacabka degan gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho, waxaan leeyahay cadowgaas manaxaha ah, horarka ah, dhibka badan u jeedin maalin walba inuu damacsan yahay inuu khasaaro shacabka Soomaaliyeed inuu u geysto rabo. walaalayaal waxa ogtihiin cadowgaas inay naxin inuu horar yahay in liska celiyo ciidan iyo dawlad iyo shacabba si awood aan iskaga celino. insha Allah taala Ilaahay wuu fashilay qaraxay damacsanayeen in saldhigga khasaaro adag ay u geystaan. Ilaahay waa fashilay wax saldhigga oo jeedin waa duwatay wax khasaaro ah soo gaaray ma jirto. ciidanka lama amniga waxa uu mahadcelinaa codka wasaaradda amniga ku hadlaayo mar walba si u feejigsan yihiin oo cadowga ugu diyaarsan yihiin. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka Banaadir degan u diyaar garoowa mar walba cadowgaas horarka ama naxaha ah diin islaam aan haysanin in aan iska celin ha loo diyaar garoowo. waa mid ka mid ah wadooyinka loogu baarista badan yahay marka la eego ciidanka dawladda iyo kontaroolka ay ka wadaan wadada Maka al-Mukarram ee magaalada Muqdisho. halkan waa saldhigga booliska ee degmada Waaberi. dadku waxay isweydiinayaan cidda fududeysay qaraxa gaariga loo adeegsaday ee ka dhacay saldhiggan. dad badan ayaa ku geeriyooday. Cali Aadan Muumin,